Warasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa maanta ku dhawaaqay guddiga qabanqaabada 18 May ee gobolka Saaxil ka howlgeli doona waxaana hadaladiisii ka mid ah كويلاتنكي أبريل waxaan ku dhawaaqaynaa guddigii qabanqaabada ee 18 May ee heer gobol guddigaasi oo ay yihiin saddex ay yihiin maxaan ku dhahdaa guddiga sare iyo 11 xubnood oo iyaguna ah guddi hoosaadada hawlgalaya guud ahaan gobolka iyo ilaa degmada Berbera guddiga koowaad guddida saddexda hore waa aniga oo guddoomiyaha gobolka maayarka magaalada iyo maareeyaha dekedda guddi hoosaadku waa 11 xubnood oo wada muhiim ah magacaantooda haddaan xuso waxaa ka mid ah maxamuud ibraahim axmed ducaale oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil sacad ciise cumar oo ah xogayaha gobolka cabdilaahi xasan oo ah maareeye xigeenka dekedda berbera cabdikariim aadan siciid oo ah xogayaha dowladda hoose ibraahim digaale oo ah isku duwaha waxbarashada caashe xuseen faarax oo ah isku duwaha hay'adda diiwaangelinta sekada axmed aadan ismaaciil maareeyaha wakaaladda biyaha cabdilaahi cabdi xasan maareeyaha leydhka iyo guddoomiyeyaasha muruqmaalka dekedda waxaa kaloo ku jira farxiye xasan dheere iyo ifraax cabdicasiis dhammaantood dadkaasi waa dadkii aan ugu talagalnay inay ka howlgalaan qabanqaabada 18 May aniga oo ku kalsoon in qof kasta oo ka mid yahay uu waajibaadkiisa qaran gudan doono oo aan ka maxaan ku dhahay si bilicsan oo heer sare ah aan insha Allah filayno inaan noqono gobol ahaan kuwa ugu qurux badan ee sida heerka sare u diyaar galooba Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishinka caalamiga ee RTL magaalada Berbera